kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan kusoo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu dorkoranaya waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Baraawe golaha wasiirada Soomaaliya oo la horgeynayo xeerka maamulka ganacsiga batroolka saraakiil ciidan oo deegaanka bohol u tagay dhamaynta arinta ahlu sunna dowladda federaalka Soomaaliya war ka soo saartay saruukaca shidaalka wuxuu yahay ujeedka dalka loo keenay diyaarado nisa ku qabatay garoonka Muqdisho maamulka Shabeellaha Hoose oo amisom kala hadlay amniga Baraawe kadib dagaalkii ka dhacay askar ka tirsan ciidanka Kenya oo qarax lagu laayay daawadadan cusubtaan ugu soo bir subscribe sargan balalkana fursad u shidorka ugu dambeelka aan soo dhigno waa maalinimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay 4 bisha 12 2021 kun soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran wararka laga helay gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta ay degan tahay xaaladda magaalada xebeedka Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib dagaal ka dhacay halkaasi ilwareeda loo kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in saaka lagu guuleystay kala qaadida labadii dhinac ee shalay ku dagaalamay halkaasi xaaladuna ay tahay mid xasilan waxgarad iyo mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed oo ku baxay xiisadaasi ayaa ku guuleystay in ciidamada iyo maleeshiyaadka dagaalamay ay kala qaadaan iyaga oo ka dejiyay dabaqyo ku yaala magaalada oo ay dhufiisyo ugu jireen dhinacyada diriray sidoo kale waxaa weli socda wada hadallo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Baraawe oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada guud ee magaaladaasi sababta keentay dagaalka ah in khilaafkan gaaray gacanka hadal uu salka ku hayo awood qaybsiga dhismaha golaha deegaanka oo haatan la doonayo in loo dhiso magaalada Baraawe madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa la sheegay in uu diidan yahay in beesha hubiye ay xubno ku yeelato golaha deegaanka ee loo dhisayo Baraawe isagoo taas ka duulaya ayuu maalmo ka hor ciidamo si gaar ah ugu amar qaata ka soo daabulay Baydhabo wuxuuna ka dejiyay Baraawe kuwaas oo shalay dagaal ku galay magaalada si kastaba waxa maalmihii la soo dhaafay isu soo taraysa cabashada wacgaradka beelaha hubiye ee waxa ka dega magaalada Baraawe kawaas oo sheegaya in madaxweyne Laftagareen uu si cad ugu sheegay in golaha deegaanka ee loo dhisayo Baraawe aysan hal xubin ku yeelan doonin beesha hubiye waxayna shaaciyeen in taas aysan aqbali doonin wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhawaan golaha wasiirada ay horgeyn doonto xeerka maamulka ganacsiga batroolka dalka agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Xanshi Carabi ayaa sheegay in shidaalka hadda laga isticmaalo dalka ay maamulaan ganacsato balse xilligii dawladii hore shidaalka lagu maamuli jiray wakaaladda batroolka sidaasina ay qaybin jirtay waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in xilligan shidaalka Soomaaliya yaala uu qiimo koror ku dhacay taasina ay sabab u tahay qiimaha doolarka ee kacay iyo dalalka laga keeno uu aad qaali ugu noqday ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Xanshi Carabi ayaa sheegay in ay sameeyeen xeerka nidaamka shidaalka lagu isticmaalo sida shatiga shirkadaha ka ganacsanaya hubinta shidaalka noocyadiisa kala duwan isla markaana xeerkaas dhammaan ay gaarsiiyeen ganacsatada shidaalka noocyadiisa kala duwan dowladda Soomaaliya ayaa dhowrkii sano la soo dhaafay waday qorshe shirkado ay dalka ugu soo saaraan shidaal si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa hela shidaal qiimo jaban oo bulshada ay ka helaan waxaa maanta gaaray deegaanka bohol ee gobolka Galgaduud wafdi saraakiil ah oo horkacayo taliyaha ururka 6aad ee guutada 6aad ciidamada xoogga dalka Jarnaal Aadan Abshir Nuure halkaas oo ay ku sugan yihiin xubno sarsare oo ka tirsan ahlu sunna wal jamaa ujeedada saraakiishan ay u tageen deegaanka bohol ayaa waxa lagu sheegay xalka gaarista arinta ahlu sunna ee ku aadan dhamaynta tabashada ay qabaan iyo ka gudbida waxyaabihii ka dhashay dagaalkii degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud maalmihii la soo dhaafay kulamo uu Jarnaal Aadan Abshir la yeelanayay siyaasiyiinta madaxda Galmudug iyo waxgaradka deegaanka ayaa la go'aamiyay in halkaasi maanta uu tago isaga iyo mas'uuliyiinta la socota kadibna wada hadallo ay bilaabaan saraakiisha ka socota ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay kulamo la qaadan doonaan xubnaha hoggaanka ahlu sunna si loo dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya ahlu sunna iyo maamulka Galmudug degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa dhawaan ka dhacay dagaal geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah kaas oo uu u dhaxeeyay ciidanka dawladda iyo kuwa Galmudug dhinaca iyo xoogagga ahlu sunna ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa
garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ku qabtay diyaarado nooca loo yaqaano droniska oo tiro ahaan gaaraya 6 diyaaradood oo ku jiray sanduuqyo xiran. diyaaradahan oo garoonka aadan cadde loogu soo dejiyey xamuul ahaan ayaa waxaa sheegtay inuu leeyahay uu isaga dalka keensaday xildhibaan Sikriye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka uu waqtigooda dhamaaday. xildhibaan Sikriye Maxamuud oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in diyaaradaha droniska ee lagu qabtay garoonka aadan cadde uu isagu leeyahay isla markaana hay'adda NISA ku eedeeyay in ay si sharci darro u la wareegtay. waxa uu tilmaamay xildhibaanka in diyaaradaha uu ka keenay dalka Turkiga ayna leedahay shirkadda hufan oo ka shaqeysa la dagaalanka cayayaanka iyo beeraha loogana talagalay la dagaalanka iyo buufinta ayaxa iyo waraabka beeraha. ugu dambeyn xildhibaan Sikriye ayaa ka codsaday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA inay si degdeg ah u soo celiso hantida ay leedahay shirkadda hufan ee diyaaradaha droniska ee looga talagalay in looga adeego beeraleyda Soomaaliyeed. waa sida hadalku u dhigay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cabdiraxiin ayaa kulan looga hadlayay ammaanka Baraawe la qaatay saraakiisha AMISOM ee ku sugan degmadaasi Baraawe. kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii ciidamada AMISOM ay ugu diyaar garoobi lahaayeen howlgallo lagula dagaalamayo Al-Shabaab iyo ammaanka doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan magaalada Baraawe. Maxamed Cabdiraxiin gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maalmihii dambe kulamo gaargaar la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ammaanka. kulankan dhexmaray gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo saraakiisha ciidanka AMISOM ayaa ku soo aadaya xilli shalay degmada Baraawe ay ku dagaalameen ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaad ka soo horjeeda habka loo dhisayo golaha deegaanka degmada Baraawe. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax saacadihii la soo dhaafay ciidan ka tirsan kuwa Kenya lagula eegtay qaybo ka mid ah gobolka dhaca xeebta ee Lamu kaas oo geystay khasaare kala duwan. qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya xilli ay ku socdaalayeen deegaan ka tirsan gobolkaasi. wararka ayaa sheegaya in miinada haleeshay mid ka mid ah kolonyada ay wateen ciidamada Kenya waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda weerarkan qaraxa loo adeegsaday ayaa shaacisay in ay ku dishay ugu yaraan 10 askari sida ay hadalku u dhigtay. qoraalka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay gubeen mid ka mid ah gawaarida dagaalka ay wateen ciidamada qaraxa la eegtay ee dowladda Kenya. dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee ku aadan qaraxaasi ay guulaha ka sheegatay kooxda Al-Shabaab. inta badan waxaa deegaanada ku dhow xadka Soomaaliya weeraro khasaare geystay ka fuliya xoogaga Al-Shabaab oo weli dagaal ka wada gudaha Soomaaliya. intaasaynu ku soo afmeerin warkaad kala socoteen Samareeb TV. inta warkan war lamada kulmi doono waxaa idin kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.